Assalaamu calaykum. Shimbirka shimbiraha aabahood guumays. Marka uu ku soo weeraro guumays, cidna ma awoodo inay kaa celiso ama kaa xakamayso. Muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa weeraradii ugu cajaa'ibta badnaa ee uu sameeyey guumayska, kuwa oo laga duubay. Inta aanan muuqaalkeena u gudagelin, haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, sidoo kale like saar si aynan kuu dhaafin muuqaalada quruxda badan ee aynu soo wadno. Bakayle iyo guumays. Bakayluhu wuxuu jiraa 53 kiiloomitir saacadiiba, halka guumaysku uu awoodo inuu jiro 100 mayl saacadiiba. Dagaalkan guuldarrada u badan ee lagula jiro bakaylaha waxaad ka baran kartaa inay taasi mucjiso gaar ah tahay. Bakayluhu wuxuu u heelan yahay si uu naftiisa uga badbaadsado guumayskan dagaalka ku haya, laakiin wuxuu raadinayaa nasiinyo yar si uu uga baxsado mar kale. Waxa uu u istaagay sidii uu uga boodi lahaa ilaa ugu dambeyntii uu guumayska ku fashilmo inuu qabto bakaylaha. Guumays iyo ri. Qaybta muuqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa sida uu guumayska u weeraray ariga ama eriga. Guumaysku ariga ugama baahna inuu eryado in badan si uu gacanta ugu dhigo, keliya waa intuu ku buudo. Laakiin guumayskani wuxuu ariga ku helay meel dhagaxyo badan ilaa uu isaga naftiisa uga baqay inuu dhagaxaanta ku dhufsado. Waxaa dhab ah inuusan guumayska hawada u qaadi karin rida. Ugu dambeyntii waxaa dhaawac gaaray guumayska, sidaana waxaa ku badbaaday ridii uu la dagaalamayay. Waa kan mar kale guumays weeraray ey. Eygu waxa uu u yimid guumayska si uu ula cuno noolaha uu guumaysku cunayo, ama xitaa uu gebigiisuba ka cuno. Laakiin kadib guumayskii wuxuu wajahay dhanka eyga si uu isaga dhiciyo ama uu u dilo. Sidoo kale eygu wuxuu awoodaa inuu cuno guumayska gebigiisaba. Guumayskii weeraray samaga ama malayga badda ku jira. Guumayskani waxa uu weerar ku qaaday malay ama samag dhex maaxaya badda ilaa uu u adeegsado awood ah inuu kor la aado. Nasiib darro, marba marka ka dambeysa, ujeedka guumayskan oo ah inuu la kaco malayga way sii nusqaamaysaa, oo malaygu badda ayuu kaga dul dhacayaa. Guumayskii weeraray aadamaha. Sidoo kale daawade, guumaysku wuxuu weeraro kala duwan ku qaadaa bani'aadamka. Dhibaatooyinka uu noolaha kale u geysto guumayska keliya kuma koobna xayawaanada, xitaa wuxuu dhibaateeyaa ama weeraraa bani'aadamka. Waxaa jira meelo fara badan oo uu ilmo yar ku dhibaateeyey ama uu ku cunay. Meeshii ugu dambeysay uu ilmo yar ku qaato waxay ahayd USA. Mararka qaar waxaa la wariyaa in carruurta ay khatar badani ugu jiraan inuu noolahani la kaco oo gebigiisuba cuno. Tani waa qiso hadda ka hor dhacday. Canug yar oo ku ciyaaraya beer, sidoo kalena hooyadii ay dul joogto, awoodi weydayna inay badbaadiso ilmaheeda yari. Sidoo kale waxaa jira weeraro uu xayawaankani ku qaaday 3 rag ah, wuxuuna asiibay gacanta mid ka mid ah raggaasi.